بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قاليقة waa idin salaamay meel kasta joogtaan iyo xilli kasta idinta waxaan rajeynayaa in farxad iyo caafimaad qabtaan. Ilaahay idin siyaadiyo inta xanuunsanaysa Allah caafiyo inta caafimaad qabta Allah siyaadiyo. Waxaa inoo wada maasha Allah ceesh baroon iyo qudaartiisa markii aan sameysanay sidaan quruxda badan ayuu inoogu soo baxay. Asxaabtayda qaaliga isla socod wanaagsan sida fudud aan u sameysanayno insha Allah. ugu horeyn halkan waxaa yaalo baaquli iyo biyo qandac ah waxaan ku soo shubanayaa burkii aan ka sameysan lahayn ceeshka masha Allah ceesh oo fudud waaye oo jileec ah easy ah waxaan isticmaalayaa burkaas Atamark in bur brown ah haysatay isticmaali kartaa asxaabtayda qaaliga ah asxaabta isoo weydiisay Soomaaliya burka brownka ah ma yaalo walaaleyga qaali waxa ka fiirsan supermarketyada hadii aadan heli karin waxa sameyn kartaan waxa shiidanaysan qamadiga midka qoloftiisa qabo ayaa shiidanaysa hadii aadan heli karin midka la tumay oo xashirsan ayaa shiidan kartaa asaga ku noqonayo bur waxaan ku soo shubtay labadii koob ee burka brownka aheeday qaado halfkeeda oo ah leebito waxaan ku darsanaa hal qaado oo ah olive oil saliida olive oil waxaa ku darsanayaa wax yar cusbo ah kuma dari doono waxaana ah wax ukun ah wax sokor ah asxaabtayda qaaliga ah halahan ayaan ka sameysanaa insha Allah hadii aad tahay qof shaqeeyo ama qof oo mashquulkiisa badan yahay na rabo inuu diet-ka iska jaro hal mar ayaa waxaa sameysan kartaa cuntadaada wada diyaarsanaysaa fridge-ka iska gashanaysaa hadaa ceesh sameysanaysid 2 bil ama 3 bil waxaa cuni kartaa ayaa iska sameysanay chapati-ga sidoo kaleeto digirta sidoo kaleeto spinach-ka kaleeto waxaa soo geliya hada ka hor iyo digirta qamadiga anigoo sameeyay oo diyaarsado oo fridge-ka igu jiro waxay ka saacideynaysaa hadii aad mashquul badan tahay markii hadhow gaajo ku qabato oo kaleeto inta cuntadii kaleeto iska ilaalinaysid aan cuni laheeday cuntadaada oo diyaar ah fridge-ka soo baxsanaysaa hore ayaa ka karsanaysaa maasha Allah sidaas ayuu kuugu saxmayaa jadwalka asxaabtayda qaaliga ah si fiican ayaa u soo xashay cajiinkii cafwan kaamirada ayaa iga dhaqaaqday waan soo dhigaa insha Allah waan soo laabanayaa 20 daqiiqo ka bacdi waan soo laabtay ceeshkeeni oo ujeedaan sidaas ayuu noogu soo baxay labadii koob ee burka waxaan ka soo dhigayaa 8 kuus ayaan ka dhiganayaa masha Allah casho waa ka dhigan kartaa ceeshka qado waa ka dhigan kartaa cashada ma ahan waqti late in la cuno cashada waa in waqti fiican aan cuntaa adiga ugu dambeyn habeenkii 1 saac ama 2 saac 11 saac 12 saac ilaa 1 saac ilaa 2 saac ugu dambeyn waa inaan cuntaa cashadaada waan soo daboolay shukumaan nadiif waan soo dhigaa 15 daqiiqo oo soo laabanaa insha Allah ama 10 daqiiqo insha Allah u soo laabanaya waan soo laabtay asxaabtayda qaaliga ah cajiinka wax yar ayuu soo kacay waxaan dabka soo saartay baan ama birti aan ku duba lahaynay waan saarayaa birta insha Allah asxaabtayda qaaliga ah waxaan rabaa ceeshka inaan dhaxda wax ka gashto oo sida shawarmada oo kaleeto markaas ceeshka hadii aad qaadada ku riixdid wuu isku dhagayaa wuxuu ku noqonayaa mid sub lagu cunaayo laakiin hadii aad gidgidisid oo markuu bislaado iska dhaaftid asaga kor u soo kacayo wuxuu ku noqonayaa ceesh maasha Allah dhaxdiisa oo empty ay tahay wax walba aad gashan karto qudaar aad gashan karto chicken aad gashan karto wax walba aad gashan karto ujeedaan sida uu noogu soo kacay maasha Allah banooni oo kaleeto ayuu noqday waxaan tusi doonaa insha Allah 2 xabo ka bacdina waan soo dhameysanayaa 6 xabo oo kaleeto saliida birta amariyana waxay aheeday olive oil asxaabtayda qaaliga ah waxaan ku cuni doonaa ceeshkan tuna salad sida aad ku soo aragteenba fiidiyowga bilowgiisa waxaan ku cuneynaa tuna salad insha Allah aan ka sameysanayna asagana qudaar yar oo easy ah oo aad ka heli kartid gurigaada
isla sida ayaan sameyneynaa labada dhinac waa gedgedinayaa waxaan rabaa inuu soo bislaado kabacdi asaga soo kacayo qaandada kuma taabanayo hoos uma riixi doono insha Allah waan ujeedaan waa ceesh qaleel ah wax saliid ah malahan asxaabteyda qaaliga ah oo ujeedaan hadda ayuu soo kacaya because geesaha wuu kasoo bislaaday markuu soo bislaado asaga ayaa keligiis kor usoo kacayo oo ku noqonayo sida banooniga oo kaleeto maasha Allah ujeedaan maasha Allah ceeshkeeni dhanka kaleeto sidaas ayaan uga soo gaduudinaynaa wax yar maasha Allah waxaan tif ku siiyey birta wax yar saliid olive oil aan rabay inuu burka ii soo gaduuto oo golden qurux badan oo ii noqdo asxaabteyda qaaliga ah waa soo dhameysanaa insha Allah waa isku soo laabaneynaa markii aan soo dhameysto kulligiis insha Allah waan soo dhameystay ceeshkii halkan ayaan kusoo ritay waa ujeedaan siduu u qurux badan yahay yaryarkaas ayaan kasoo dhigtay waa ujeedaan dhexdiisa markii aan saan u kala dilaaciyay ma ujeediina qolaa ku dhex yaala qol wax walba ayaa dhexda ka gashan kartaa maasha Allah waxaan sameysanaynaa qudaartii aan ku cuni lahaynay tuna salar waxaan ka sameysanaynaa wax yar oo easy waayo oo gurigaada aad ka heli kartid hal xabo afkaadhe jab basal isticmaalaya hal xabo liin dhanaan malaay ama tuna fish waxaan isticmaali doonaa half ka isticmaalaya iyo hal xabo qajaar ah ugu horeyntii afkaadhada way bisishahay sidaas ayaan u kala jaraya afkaadhada waxaan rabaa inaan soo yaryareeyo oo soo jarjaro malaayga half ayaa ka isticmaalaya because uu weyn yahay gasac weyn waaye basashane jab ayaan ka isticmaalaya insha Allah asxaabteyda qaaliga ah sidaas ayaan afkaadhada u soo jarjaranaa maasha Allah asxaabteyda qaaliga ah oo ujeedaan cunto caafimaad leh oo fudeed waqti ka qaadanaynin easy ah oo fitamiin wax walba isugu jirto waaye maasha Allah galaaskaada biyaha soo qabsanaysaa ku dhahay maasha Allah calooshaada ku buuxsamayso hal xaba ka cunaysaa maasha Allah baahi dhan isma arkaysiin maasha Allah asxaabteyda qaaliga waan soo jarjartay qajaarkii afkaadhadii hadda waxaan jarjaranayaa basasha jab ayaan ku darsanaa basal gaduuda waxaa kaleeto aan ku darsanaa insha Allah wax yar kabsar caleen ah maasha Allah ayaga dhan waxay isku noqonayaan alaab aan caadi ahayn maasha Allah tastigeeda dhadhankeeda macaanteeda malaay ayaan kasoo shiidayaa kasoo miirayaa saliida qaleelka kasoo dhigay insha Allah ayaan ku darsanayaa half waxaan jarjarayaa kabsar caleentii waaye kabsar caleenta maasha Allah caraf ay ka dhigaysaa iyo dhadhan ay u yeelaysaa malaayga waan kasoo miiray saliidii half ayaa ku darsanaa insha Allah ujeedaan half lay ku darsanayaa kulli ma ku wada daraayo inkaas haddii uu ku haro malaayga hala dhiganin gasaca ma fiicno waxyaabaha gasaca lagu keeno in aad gasaca haddii aad furto ku keed garaysatid waxaa ku xiran kartaa bac ama waxaa ku shuba kartaa caag yar oo isku dabool ah laakiin hala dhigin gasaca wax walba oo gasac lagu keeno uma fiicno caafimaadka haddii la furo ay leerta gasho waxaan soo qaadanayaa hal xabo oo liin dhanaan ah sidaas ayaan ugu miiranayaa baaquliga waxaan rabaa in aan sameysto soos yar aan ku darsado salarka ayaan sameysanayaa asxaabteyda qaaliga ah waxaa ku darsanaa insha Allah hal qaado haafkeeda oo olive oil ah qaanda haafkeeda waaye oo olive oil ah waxaan rabaa wax yariis leh inay dhadhan igu yeesho maasha Allah dhadhankeeda aad u macaan yahay waxaan ku darsado wax yariis orgaana ah organa space waaye organa space asagana aad u macaan yahay waxaan ku darsaday wax yar filfil ah maasha Allah alahaana ku dhahay alaabtan qatar hadaa baratida ku dhahay wax kale ma u baahanaysid maraq iyo hilib iyo waxaas dhan waa uga maarmaysa waxaan ku darsaday wax yariis oo cusbo ah oo tasty bis ah ugu yeelayo asxaabteyda qaaliga ah cusbada badan xitaa ma fiicno ayadaa keenta faadka maasha Allah alaabtan ku dhahay lagama sheekeyn karo macaanteeda aad ay u macaan badan tahay maasha Allah waxaan soo qaadanaa hadda ceeshkii asxaabteyda qaaliga ah sidaas ayaan u dhex gelinayaa insha Allah qudaartii maasha Allah
وجدان هل حبة هدا كعنتنا كده هاي أنا فواية ما شاء الله وجدان صحابتي دقالي عيش كي شوارمضة أنا داربت السيدان أنا وقبصنيسا قدرت وعنيسا ما شاء الله جلاس كذا بيها سوق هذا نيسا ما شاء الله صحابتي دقالي وجدان سيدا قحبضنين وصوب بحذ وعديم هاد علنا لما أنتين بسيدا إيو حيرانتين جزاكم الله خيرا أصحابتي عصب وحان لا يسود وهذا فيديو غشير قرايا السلام عليكم.